وعدي بلشوي دوركن وداني با إشارة دماني دلكينا ومد الصومالي لان إسكو كيني كريو إسكو أوروري نايو كل أباري كريو وعدي بلشوي دوركن وعدي بلشوي دوركن بسم الله الرحمن الرحيم Somaliland ha noolaato Somaliland ha noolaato waxaan u mahadnaqayaa shacbiga tirada badan mas'uuliyiinta ahzaabta qaranka iyo shacbiga alla qiyaasi karin iyo taageerayaasha maanta halkan isugu yimi kana qayb qaatay inay soo dhaweeyaan aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa ilaahay baa mahad leh ilaahay baa mahad leh inaan nabadgelyo ugu soo noqday dalkaygii iyo dadkaygii waxaan ku faraxsanahay inaan fagaarahan idinkala hadlo shacbiga Somaliland waxaan dalka ka tegey isagoo dalku nabada oo xasiloon oo nabdoon waxa ayaan daraa in madaxweynihii dalka qalalaasa siyaasadeed geliyo qalalaasa kasta waxa ugu weyn oo ugu xun in dalgalo muran dastuuriya marka madaxweynihii dalkii wuxuu geliyey muran dastuuriya miyaynu yeellaa waxaan shacbiga Somaliland iyo daneeyayaasha Somaliland oo dhan u sheegayaa in madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland uu qaadi doono mas'uuliyadda dhibaato kasta oo ka timaada qaladahaas walaalayaal shacbiga Somaliland wuxuu dhawaan doortay golaha wakiilada waxaynu ka filaynay inay dalka horumarkiisa ka qayb qaataan aqoon xirfad firfircooni ay ku soo kordhiyaan dalka hase yeeshee sida muuqata khilaafka looga soo waariday madaxtooyada jamhuuriyadda Somaliland ayaa kala irdheeyey golihii wakiilada ee cusbaa muddo 2 wiigana may fadhiisan waxaan u sheegayaa golaha muddo 12 sannadood ka tirsanaa golaha wakiilada jamhuuriyadda Somaliland marna may dhicin xaalad kasta iyo dhibaato kasta oo dhacday in xildhibaanadu maxkamadaha iska dacweeyaan maxkamadda iyo golaha iyo xeerdejintu way kala madax bannaan yihiin waxaana kula talin lahaa xildhibaanada cusub ee jamhuuriyadda Somaliland inay khilaafkooda ku dhammaystaan fadhiyaal xidhan oo gudahooda walaalayaal waxaan halkan idinka caddaynayaa shacbiga Somaliland iyo dhammaan daneeyayaasha Somaliland in xisbiga wadani iyo xisbiga kale mucaaradka ah ee wacid midkoodna aanu ka soo horjeedin furista ururada siyaasadda cuqdadna ka qabin furista ururada aqbali doonina labada xisbi waxaan xeer jidaynin ama sharci jidaynin doorashooyinka waxa loo soo kala horraysiinayaa siday u kala horreeyaan
doorashooyinka waxaa loo soo kala horraysiinayaa siday u kala horreeyaan. waxaa ugu soo horreeya doorashada madaxtooyada oo ku beegan 13 Noofembar siduu madaxweyne muuse wareegtadii uu qoray bisha Julaay 20keedii ugu gudbiyey golaha wakiilada. sababta ugu weyn uu soo celiyeyna waxay ahayd wuxuu ka hor imanayay xeerkaasi doorashada madaxtooyada oo ah doorasho dastuuriya. doorashada madaxtooyada waa in waqtigeedii lagu qabtaa. doorashada madaxtooyada waa in waqtigeedii lagu qabtaa. in saacad lagu daro ma ogolin. in saacad lagu daro ma ogolin. in saacad lagu daro ma ogolin. miyaynu ogollay tartanka ururada diyaar baannu u nahay marka ay dhammaato muddada xeerku siiyey jiritaanka axsaabta qaranka. diyaar baannu nahay qoladale axsaabtaa diidan waa beenaalayaal waana doorasho diid. waa beenaalayaal waana doorasho diid. madaxweyne muuse waxaan u sheegayaa inaanaan madaxweyne u aqoonsan doonin marka uu dhammaysto muddo xileedkiisa dastuuriga ah haddaanu qabannin doorashada. maalin labaad waxaad maqlayseen xukuumaddoo tidhi ururadu way iska furan yihiin. haddii doorashada la qaban waayo madaxweynayaashuna way iska furraan doonaan. haddii doorashada la qaban waayo siday u yidhaahdeen ururadaa iska furan madaxweynayaashuna way iska furraan doonaan. walaalayaal dastuurka qodobka 37 waxa uu qeexayaa inay kala madax bannaan yihiin waaxaha qaranka ee garsoorka fulinta iyo sharci dejinta. waxaan xukuumadda ugu baaqayaa inay faragelinta qaawan ee khayr dastuuriga ah kala baxdo golaha wakiilada gacanteeda. waxaan ku soo guuraanadayaa hadalkayga baaqaan u dirayo shacbiga Somaliland. waxaana weeye shacbiga Somaliland nabad buu u baahan yahay, cadaalad buu u baahan yahay, doorashuu u baahan yahay. waa inay gacmaha isu qabsaan shacbiga Somaliland inay ka hor tagaan oo ay diidaan oo ay beeniyaan qalalaasaha madaxweyne muuse dalka geliyey si ay u badbaadiyaan qarannimada Somaliland. si ay u badbaadiyaan qarannimada Somaliland iyo dimuqraadiyadda Somaliland. allah idin barakeeyo. ilaahay madar khayr qaba hayna siiyo. ilaahay madar ay naga jabiyo abaaraha. waxaan ku soo gunaanadayaa ballanteennu waa doorasho. ballanteennu waa doorasho. waa 13 Noofembar. waa 13 Noofembar. aad baa u mahadsantihiin. salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.